Bismillah. Kusoo dhawaada mar kale iyo barashadeenii grammatiga luqadda Jarmalka inagoo af Soomaali ku turjumayna. Grammatiga waa qayb muhiim ah oo luqadda ka mid ah. Sidoo kale foreshortenka iyagana waa qayb muhiim oo luqadda ka mid ah. Labada dhinacba haddii aadan si fiican u aqoon waxaa kugu adkaanaya inaad si fiican u hadashid, si fiicanna wax u qortid. Maanta waxaynu qaadanaynaa wax la yiraahdo prepositionen ama meelayaasha afka. Meelayaasha af Soomaali lagu yiraahdo. meelayaasha la xidhiidha iskool ayaynu qaadanaynaa. meelayaasha oo dhan ma qaadanayno, laakiin meelayaasha loo isticmaalo iskool ayaynu baranaynaa. Iskoolka ayaan ka yimi, iskoolka ayaan joogaa, iskoolka ayaan wax ka bartaa, iskoolka ayaan wax ka bartay, iskoolka ayaan wada dhigan jirnay, meel heble ayaan iskoolka ka soo dhigtay, meel heble ayaan iskoolka ku dhameeyey, natiijadaas ayaan iskoolkayga keenay iyo wararka la mid ah. Markastoo aad iskool ka hadlaysid waxaad u baahan tahay meelaye la'aan ma dhisi kartid. haddaba toddobadan meelaya ayaa iskoolka oo dhan ku wareega dhinac kasta oo hadalkiisa loo dhigo. Marka uu qofku ka hadlayo kelmadda iskool ama iskool baan dhigan jiray, waan dhigaa, waan dhigi jiray, waan ka imi, waan ku socdaa, waan joogaa, waan dhiganayaa, waan wada dhigan jirnay, meel heblaan ka dhigan jiray. iyana mar walba qofku uu ka hadlayo iskool toddobadaas mid ka mid ah ayuu isticmaalaya. waynu arki doonaa markaynu jumlooyinka si fiican u dhex gallo imaanu qofku auf isticmaalo in, an, sur, von, aus, für. toddobada mid ka mid ah ayuu qofku isticmaalaya. maanta kama wada gaarno toddobadaba inaynu jumlooyin ku dhisno oo mid kasta aynu muujino sida loo isticmaalayo af Soomaaliga ku turjuno, laakiin qayb ka mid ah ayaynu isticmaalaynaa. qaybta ku xigta casharrada kan ku xiga ayaynu ku diyaarin doonaa, dabadeedna si rayhanfolgamo ama isdaba jooga ayaad u heli doontaan, si isku xigta ayaad u baran doontaan qaybtan waynu u dhammayn doonaa. waxaan rabaa intaan sharaxaad guda gelin inaan ku iraahdo haddii aad doonaysid inaad grammatiga si fiican u baratid ku xirnow YouTube-ka Basha Academy iyo waliba bartiyada Facebook ee Basha Academy. waxaan halkaas soo gelin doonaa casharo free ah oo grammatic iyo foreshorten labada dhinac isugu jira. waxaanu insha Allah isku daynaa sabuuciba ugu yaraan 3 ilaa 4 jeer inaanu casharo soo gelino. waxaa dhici karta inaad wax fara badan ka faa'iidid. waxaan kale oo aanu ka codsanaynaa inaad casharkan u sii share gareysid iyo kuba ku xigaba markay ku soo gaaraanin walaalaha kale si ay uga faa'iideystaan. ha noqonin qof bakhayl ah. jumlada koowaad wuxuu yiri was machst du? maxaa samaysaa? halka kan kelmadda was machst du waa infinitive ama si kale haddaynu u dhigno waa fal hadda jooga, waa present. markaynu dhisaynay falalka aynu ka hadlaynay waxay u dhigmaysaa fal hadda jooga. markii ay sidaasi tahay saddex xaaladood ama labo ayaa loo isticmaali karaa. mar waxaa loo isticmaali karaa wax daa'ima oo caadi ahaan markii fal caadi ah waxa aad maalin walba samaysid lagu weydiinayo waxaa la isticmaalaa present. was machst du? maxaa samaysaa? waxay kale noqon kartaa was machst du? maxaad samaynaysaa? labadaba way noqon kartaa. inaga hadda contextiga iyo jumlada meesha hadalku ku jiro ayaa hadalka bedelaya. inaga hadda meesha inoo ku jirto waxaynu ula jeednaa maxaad samaysaa, noloshaada maxaad samaysaa, maxaad qabataa, maxaad ka shaqaysaa, saas ayaynu ula jeednaa. waxaynu niri markaa was machst du? maxaad samaysaa? wuxuu ku jawaabay ich lerne Deutsch ayaan bartaa in der Basha Academy Schule. ich lerne Deutsch in der Basha Academy Schule. iskoolka Basha Academy ayaan luqadda ka bartaa. maxaa samaysaa? iskoolka Basha Academy ayaan luqadda ka bartaa. aydan ka bartaa maxaynu u baahanahay in. haddaynaan in haysan vorin lernen Sie Deutsch. vorin lernest du Deutsch. xagee ayaa luqadda ka barataa? in der Basha Academy. iskoolka Basha Academy ayaan luqadda ka dhigtaa. in ayaynu u baahanahay. halkan mar ayaa an la isticmaalaa laakiin looma badna. waa wax la yiraahdo veraltete Sprache ama luqadii laga gudbay ee dhacday ayay noqonaysaa an, oo inta badan an hadda waxa loo isticmaalaa markii iskoolka laga hadlayo. qaybaha dambe ayaynu ugu tagi doonaa ee iskoolka aad dhigtid ama ka shaqaysid macalinka ka tahay. sidoo kale iskoolka waxbaan ka dhigaa ama waan ka shaqeeyaa. saas ayaa loo isticmaalaa. qofka macalinka ayaa inta badan loo isticmaalaa, qofka ardayga looma isticmaalo, laakiin xilligii hore waa loo isticmaali jiray. jumladeena labaad ich war auch auf dieser Schule. ich war auch auf dieser Schule. anigana iskoolkaas ayaan dhigan jiray. aydan waa dhigan jiray waan ka tegey. maxaynu u baahannahay auf? sababtoo qofkani hadda iskoolka ma dhigto. muxuu u baahan yahay marka auf? wuu dhigan jiray. ich war auch auf dieser Schule. anigana iskoolkaasi ayaan dhigan jiray. aber ich bin jetzt nicht mehr auf der Schule. laakiin aniga hadda wax badan aniga hadda iskoolkaasi ma joogo, waan ka tegey. ich war auch auf dieser Schule. anigana waan dhigan jiray iskoolkaas Basha Academy, aber ich bin jetzt nicht mehr auf der Schule. laakiin aniga hadda iskoolkaasi ma dhigto.
aniga hadda iskoolkaasi ma dhigto ich kenne dich waan ku garanayaa wir fahren auf eine Schule waan ku garanayaa iskool ayaynu isla dhigan jirnay aydan wir fahren auf eine Schule iskool ayaynu isla dhigan jirnay iskool ayaynu isu raaci jirnay wada joognay waa fal laga soo tegay waa fal oo mar hore dhacay weeyaan qofkii ayaa la yaabay wuxuu yiri wo bist du zur Schule gegangen xagee ayaad iskoolka ka dhigatay wo bist du zur Schule gegangen xagee ayaad iskoolka ka dhigatay yani xagee ayaad ka soo dhigatay iskoolkaaga xageed u aaday iskoolkaaga xageed ka aadi jirtay xageed ka dhigatay iskoolka zur Schule gegangen waxa la isticmaalaa ama waxa la isticmaalaa laba jeer markaad iskoolka u socotid fal hadda jooga waa loo isticmaalaa ama markaad iskoolka aaday oo leedahay iskool baan aaday yani tegitaan socodad ka hadlaysid sidoo kale waxa loo isticmaalaa markii aad iskool aad dhigan jirtay ka hadlaysid meesha aad iskoolka ka dhigan jirtay iyadana waa loo isticmaalaa aydan wo bist du zur Schule gegangen xagee ayaad iskoolka ka dhigan jirtay ich bin in Somalia in Mogadishu zur Schule gegangen ich bin in Somalia in Mogadishu zur Schule gegangen magaalada Muqdisho ayaan iskoolka ka dhigan jiray ee Soomaaliya ama Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaan iskoolka ka dhigan jiray Soomaaliya ayaan iskoolka ka dhigan jiray magaalada Muqdisho ayaan ka dhigan jiray ich bin in Somaliland in Hargeysa zur Schule gegangen ich bin in Somaliland in Hargeysa zur Schule gegangen aniga iskoolka waxaan ka dhigan jiray Somaliland Hargeysa ayaan ka dhigan jiray xagee ayaan markay isku aragnay adiga Muqdisho Soomaaliya aad joogtay anigana Hargeysa Somaliland ayaan iskoolka ka dhigan jiray ja aber wir fahren auf eine Schule hier in Deutschland ha laakiin iskoolkan wada dhigan jirnay waa halkan Jarmalka aniga kama hadlayo Soomaaliya xilligii la joogay Somaliland ja aber wir fahren auf eine Schule hier in Deutschland laakiin waxaan wada dhigan jirnay iskool halkan Jarmalka ayaan wada dhigan jirnay dan kana soo fight faraagin waad si weydiin kartaa iskoolku kuma ahaa xagee ka wada dhigan jirnay waxaan rabaa inaan qaybtaasi ku joojiyo qaybta labaad waxaanu ku dhigan doonaa wax laga yaabo 2 casharo dambe inaan ka sameeyno meelayaasha inoo dhiman si aanu si fiican ugu fahamno faahfaahino hadda waxaanu fahamnay in waxaanu niri markii iskool aad wax ka dhigatid waxaad isticmaalaysaa in markii iskool aad wax ka dhigan jirteena waxaad isticmaalaysaa auf markaad iskool qof la dhigan jirteena waxaad isticmaalaysaa auf halka kan maxaynu ayna u isticmaalay halka kan adeeya u isticmaalay ama maxaynu halkan auf der Schule u isticmaalay halkan auf einer Schule u isticmaalay aydan halka kan waa unbestimmten Artikel ma garanayno iskool ayuu ahaa iskoolka anaga si sax ah ma garanayno isaga ayaa wuxuu leeyahay iskool ayaan wada dhigan jirnay iskool ayaan wada dhigan jirnay iskool ayaan wada dhigan jirnay halka kan laakiin waa bestimmte iskoolka waa la isla garanaya maxaa yeelay sheekada ayaa soo socotay wuxuu yiri aber ich bin jetzt nicht mehr auf der Schule der besitzt sich auf Bash Academy ayuu ka hadlayaa so tan marka way fududahay oo maadaama ay tahay iskool la isla garanayo ma oran karna auf eine Schule geht nicht waxaanu ku khasbanahay inaanu isticmaalo der bestimmte inaanu isticmaalo maxaa yeelay iskoolka waan isla garanaynaa laakiin hadda maadaama uu leeyahay iskool baan wada dhigan jirnay hadduu dhihi lahaa iskool hebel ayaan wada dhigan jirnay ayna looma baahdeen laakiin iskoolka ma uusan sheegin iskool ayuu ka hadlayaa iskool ayaan wada dhigan jirnay saas ayuu leeyahay so meelayaasha inoo dhiman an von aus für iyo soo kale su'a oo iyadana inoo dhiman in oo iyadana inoo dhiman sida ikhga in die Schule oo kale to casharada kan ku xiga ayaan ku diyaarin doonaa insha Allah binillahi kareem waxaan rabaa mar labaad inaan idin xusuusiyo qofka aan saaran subscribe YouTube-ka fadlan subscribe saaro gambaleelkana furo si aad markaan casharka soo gelinaba casharka kugu soo dhaco sidoo kale la garayso page-kayga Facebook Bash Academy Facebook iyo YouTube-ka waa Bash Academy oo magac خير بدن أيام دين رجيني وحي كومنتي ونقول وذا كرتان وحي رأي هذا ربطانين إن لديقه 10 موضوع قارة هذا دوني سن لديقه ودنوس وقولي كرتا إن شاء الله وحن نسكو دينا 10 كسر ما إنه كديب مركان ضمينه 10 كنا هذا لحظة وقت شفنا سكور كهذا ليه